بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku soo jirnay barashada software-ka Autodesk AutoCAD. waxaan soo gaarnay chapter-ka 7 cashirkiisa koowaad. cashirka waxaan uga hadli doonaa creating and assigning layers. chapter-ka wuxuu ku saabsan yahay layers. cashirkan wuxuu ku saabsan yahay how to create a layers. marka si fiican aan iskula soconno saa u jeedinba halkan waxaa noogu sawiran laba qol labada qol aniga ayaa soo sameeyay waxaad u jeedaa kala duwan inay leeyihiin مثلا inta waxaa noogu qoran wall inta waxaa noogu qoran text inta waxaa noogu qoran macni midabo kala gidsan midabo kala duwan ayaa noogu qoran bartaan marka waxaan rabnaa inaan marka aan ogaano sida loo create gareeyo midabadaas tusaale ahaan waxaan u baahanahay inaan ku shaqeeyo midab jaalo ah derbi kasta oo dhisaayo inaan jaalo isticmaalo albaab kasoo bixiya midab kasta inuu qaato text kasta qoraal kasta sameeyo noocaas uu noqdo daaqad kasta sameeyo noocaas ay noqoto marka how to create and assign ayaynu baran doonaa horta kow layers wuxuu ku jiraa home tab sida aan kusoo sheegnay chapterka introduction-ka ribbon-ka mar walba waxaa ka muuqdo tabka markaa kuu furan tab kastana wuxuu leeyahay groups waxaa u jeednaa hadda draw group modify group this is layers marka waa kana marka groupkan waxaa looga hadlayaa layer oo keliya marka inta ayaad imaanaysaa saad u create gareyso layer cusub halka marka saa ku dhufato waxaa kuu soo baxayo dialog box-kan dheer marka waxaa muhiim ah labadaas qodob darsigeena waa labada qodob uu ku saabsan yahay creating and align or assigning sidii loo create gareeyo iyo sidii loo set gareeyo layerka aad create gareysay haddaba marka saa u create gareeyo waxaan sameynayaa panelkaas ayaan ku dhufanayaa then waxaan u bixinayaa magacaan u baahanahay waa kana isla markiiba uu ii furay magaca aan rabo ayaan u bixinayaa tusaale ahaan waxaan rabaa inaan sawiro aniga cycle cycle ayaan rabaa inaan sawiro cycle-kayga marka midab noocee ayay qaadanaysaa halkaas ayaan ku dhufanayaa cycle hore usoo sameeyey saas uu leeyahay you will need to wuxuu ku yidhi the name cycle is already used marka aan ka bedelo waxaan u baahanahay inaan ka dhigto magacaa doonto u bixi adi waxaa weeye line-ka aad ku shaqaynaysid weeyaan mathalan waxaad ugu bixisaa waxa loo yaqaano triangle tusaale unbaa ku bixinaynaa magac uu qaadanayo marka triangle aan u bixiyo inta imow waa kana triangle midab sii marka midabka aan siinayo waxaa waaye mathalan waxaan u baahanahay inaan siiyo midab noocaas ah noocaas inuu noqdo ayaan rabaa ama midab kaloo iftiimaayo noocaas guduudka iga dhig beerbeerka ah kadib okay ayaan leeyahay okayaas kuma anfacaysa halkaas ayaa meesha laga set gareeyo settingka halkaas kusoo marka you have to set your layerka aad create gareysay set current marka current marka aad isticmaalayso marka click siiso intuu kusoo qormaa marka click siiso barta ayuu kusoo qoray macnaheedu waxaa weeye wax kasta oo sawirayso wuxuu qaadanayaa midabkaas okay kan ii soo xir inta imow marka triangle aan sameeyo marka line soo dooro okay midabka wuxuu qaatay annaga aan soo dooranay wakaasa waxaan filayaa inaad fahamteen marka hadda wax walba oon ku not only triangle haddii xitaa aan cycle qori rabo wuxuu qaadanayaa midabkaas wax kasta oon sameeyo wuxuu qaadanayaa midabka asaga ah marka aniga aan sameynayo marka derbigan dhan jaalla aan ka dhiganayay waan soo new layer baan doortay kadib waa set gareeyay wixii modification ku sameyn karay baan midabkii aan kasoo bedelay kadib waan ku shaqeeyay marka waan ku dul shaqeeyay saasoo marka wall kasta igu yeeshay midabkaas haddii mathalan hadda aan marka aan highlight saaro wakaa waxay soo intuu kusoo qormayaa haddaa inta imaado fiiri hadda wallkan haddaa inta imaado wakaa magaca soo baxay wall haddaa albaabkan imaado door baa soo baxay sababto waa ku dul shaqeeyay anaa magac soo bixiyey haddaan text imaado waa kana ku dul shaqeeyay text uu soo qoraya haddaa hadda windowskaan imaado waa kana window ayuu soo qoraya marka waxaa loo sidaas ayaa loo create garayaa layerka that's how to create layer and how to assign hal mar aan ku celiyo inta ayaad imaanaysaa layer baad imaanaysaa waxaad u bixinaysaa magacaad u baahan tahay
magacaad intaas ku dhufo oo bixi marka magaca u baahan tahay مثلا shaati cad oo bixi shaati cad oo bixi haye midab sii marka midabka noo siinaysaa noo noqdo jaallo noocaas ah jaalaas ay noqdo kadib okay leh okay bas kuma saacidayso halka waa iloobin inaa inta imaado set current marka midkan ku shaqeynay ka dhig weeyaan موجودة وكا انتو كسو قر مركي بشاتي عدي سو موجودي اوكي حتى مركا عن شقيو صوت دور مثلا لاين صوت دورو ميدبك جالها ايو نقنايا وكا you see سيداس ايا الله كريات كريا layer فهميسا وانا كنا انت ايو كجيرا مركا سان usoo furno insha Allah taala tutorialka dambe ayaan ku sharxi doonaa optionadan badan oo ku saabsan laakiin darsigana wuxuu ku saabsan yahay how to create and set layer sida loo abuuro loona set gareeyo loogu dul shaqeeyo inta ayaa ku soo koobaya darsiga. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.